goordhaweydoo galabta waxaa magaalada ceergaabo ka dhacay mudaharaad ballaaran oo lagaga soo horjeedo natiijadii guddida komishanka doorashooyinku ku dhawaaqeen ee madaxweyne loogu doortay murashaxa xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxaana dadka mudaharaadayay oo ku dhawaaqayay halkudhigyo ka tarjumaya dareenkooda ayaa waxay sheegeen in wax kasta oo musuqmaasuq iyo istabamarin ah aanay marnaba ogolaanayn iyagoo sheegay in xisbiga wadani codkii laga shubtay komishankuna ay ku dhawaaqeen xaqdarro iyagoo intaasi raaciyay in aanay marnaba aqbalaynin doorashada madaxweynaha loogu doortay muuse biixi cabdi halkan dhambaal tacsiya baan uga dirayaa muuse anagu kuma rabno kuma doonayno dagaalkii 19 aad bilowday baad dib u soo celisay iminka burcamaydkaagii baa yaallaa dishay ceergaabo waa yaallaan anagu ma rabno muuse dooni mayno inuu ceerigaabo ka talinayn iyo burcaba anagu haddaan dhalinyarta reer ceerigaabo dooni mayno annagu haddaanu nahay dhalinyarada ceerigaabo ama gobolka sanaag muuse bixi dooni mayno oo ma rabno oo ma doonayno dagaalkii uu 19 u bilaabay ayaanu maanta dib u soo celinaynaa haddii muuse nala ka bedeli waayo ama muuse nala ka bedeli waayo haddeerba waxaan leenahay muuse gobolka sanaag annaga xukumayna annagaana iskale maanta ka bacdi annaga gobolka sanaag xukumay hala ku soo lugoy si kastaba ha ahaatee mudaharaadkan ayaa waxa ku dhaawacmay 2 qof oo shicib ah waxaana meel kasta oo magaalada ka mid ah lagu soo daadiyay ciidamada militariga iyo booliska kuwaasi oo dejiyay haatan xaaladda Siciid Muuse Faarax Xisaab TV Ceergaabo.